ملك جبريل عليه السلام بوحى لي إلهي قرية أصدر وحي قرية السهلاء markuu yimid waxa arkay nin caamil ah oo cilmiga bartay oo ku amal falay oo saalix ah oo qoryada dhex fadhiya ilaahu wuxuu yiri ninkan waa ninkaas ku dhex jira dadka ay tir soo hala waxaan sameeyaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri asaga ka bilow hay'al islaahi ummadda waxa uma tarin ma anficin waa fasaadeen bal la halaaga ya asaga ka bilow ahbaab marka maanta waxaan joognaa xilli annagoo cilmigeennii iyo kutubta inta far leeg iyo diinteennii ay dhexdan baaq ku tahay bulshadeennii ay ku kadsoontay ama qaadatay caadooyin dad kale iyo dhaqamo dad kale maasad xubnaheeda iyo dalabada iyo wariyaasha dhammaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii waxba ma harin waxaa inoo dhameeyey culimada waxaan ka daba tagayaa wax yar aan ku baraarujinayaa kitaabka inoo dhamaaday waa sunnah tirmidhi rahimahullah rahmatul abraar wacyiga iyo xilliga aan joognana waad garanaysaan waagi hore ama samanadii hore culimadu waxay joog jireen masaajidka cilmigana waxaa loo soo dooran jiray masaajidka laakiin hadda sabankan sidii ma aha qodobkaas waxaan rabaa inaan baraarujiyo هذا حديث النبي أنت قادتي هذا عندك أنفعين وحكفي عن إن أنت قادت تذكر أنفعني وكفي عن خطبتي ما أنت إنه آخر مساجد كالنووي باكو جدي الصالح المصلح إنه كخير بدن يقف الصالح أكلي وفق الصالحة ومصلحة ومدها قاتشية إنه كخير بدن يقف كل أنت وحبرتهم يلا فريستا أما عبادة لجمع يلا فريستا ملك جبريل عليه السلام بوحى لي إلهي قرية أصدر وحي قرية السهلاء markuu yimid waxa arkay nin caamil ah oo cilmiga bartay oo ku amal falay oo saalix ah oo qoryada dhex fadhiya ilaahu wuxuu yiri ninkan waa ninkaas ku dhex jira dadka ay tir soo hala waxaan sameeyaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri asaga ka bilow hay'al islaahi ummadda waxa uma tarin ma anficin waa fasaadeen bal la halaaga ya asaga ka bilow ahbaab marka maanta waxaan joognaa xilli annagoo cilmigeennii iyo kutubta inta far leeg iyo diinteennii ay dhexdan baaq ku tahay bulshadeennii ay ku kadsoontay ama qaadatay caadooyin dad kale iyo dhaqamo dad kale haddaad marka inta sunnah tirmidhi dhamaysaan gurigana dhigataan masaajidkan la timaadaan waxaa ka fiican inaad suuq geysaan oo qof kasto idinka in ka mid ah hadduu suuq marahayo iyo hadduu masaajid joogo laga dhigay istiqaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam oo uga qayb qaadataan ummadan islaaxeed hadday gabdha tahay iyo hadday wiilal tahay iyo hadday odayaal tahay iyo hadday ganacsi tahay iyo hadday dawlad tahay intaba inaad gaarsiisaan guryaha inaad ugu gashaan suuqa inaad ugu tagtaan baraha bulshada inaad gelisaan haddii ilaahay waxaan rabnaa insha allahu tacaala wixii hadal ahaa iyo dardaarna culimada inaad tiri laakiin haddaad u fakadhaan 60 sano ka hor ama 70 sano ka hor sida adduunku ahaan jiray haddaad u fakadhaan kitaabkiina waxa anfacay wuxuu ku anfacaya idinku in anfacaya laakiin bulshada wuxuu caamatan ugu anfici karaa inaan gudbino aad waxaan u dhiirigelinaynaa inaan haddii ilaahay idmo culimada dowrkeedu aad u hoosay inaan haddaan muassan nahay iyo haddaan culimo nahay iyo haddaan macallimiin nahay waxa in haysta tayaar ama bad weyn baan ku dhex jirnaa ummadeenni ku soo jahaysatay waxaan isleeyahay 30 sano ka bacdi haddii la sii joogo dhalinyaradana wax diinta kulli yaqaan waa yaraan doonaan marka hadda sida wax socdaan fiiris marka inaan juhdi weyn ku bixinno inaan dadka diinta gaarsiino xadiiska nabiga fiqiga iyo culumta kala duwan inaan dadka islaamka gaarsiino kulligeed inaan ducaad noqon dadka khayrka ugu yeera inaan noqono insha Allah ta'ala